السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان داوداشا قيمة هي قاية هلا ملك استوديو كجوجتان وأنا جواه إدريس حسن محمد ودين صوت ديارية برنامج كذا كبح جوال تي في. برنامج كمان طبعا كسوق قادم دونا قصة آدي هذا وحنون بدن وكرد عضي والدنضع عربتا حسا هاتين لباتوين كقبستي إلى عافماتك وأتجي اختاروا وين والدنيا ذا كمدا حسا هاتين الويري حبلا ما قام كريو حنون كذا الموقع كان سيدا ودع دونه لا داو شو يحصل سيدا ندين شيء ninkani waxa uu safray wadannada Yurub gaar ahaan wadanka Ingiriiska waxa uu ka raadsaday dhakhtar caafimaad baaritaan lagu sameeyay kadib waxa lagu ogaaday ninkani inuu hayo cudur aad u halis ah waxaana loo sheegay in lagu sameyn doono amaliyad ama lagu sameyn doono qalliinka uu ka badbaadi doono uu ku dhiman doono oo ina ahayn wax laga soo noqonayo ama uu ku ceeshi doono dunida kadib ninkii wuu yaabay oo waxa uu dhahay doctor fasaxaysi in aan faamilkayga aanu tago markay ugu dambeysay iyo ciyaalkaygii si aan u soo booqdo runtii waa u tagay oo waxa uu tagay ciyaalkiisii iyo xaaskiisii una soo macal salaamay oo waxa uu ku yiri dib dambayso u maleyn maayo inaan sarkino saaxiibadii ayuu u tagay sida oo kale maalmaha kamid ah isaga oo socda ayaa wuxuu arkay islaan miskiinada oo gudaafada ka guranaysa qashin ama hilib uu soo tuuray mid hilibka meesha ku horiibiya runtii ninkuu la yaabay oo waxa uu ku dhahay hooyo maxaa meeshan ugu kalifay oo aad waxan uga guranaysaa runtii iyadoo aad u hoysan ay waxa dhahday waxa aan qoodiyaa 6 ciyaala waxaan ka qoodiyaa qashinkan hilibkan la soo tuuro ayaan ka qoodiyaa runtii ninkii aad ayuu u murugooday oo waxa uu tagay ninkii hilibka iibinayay waxa uu ku dhahay nin yahoon waxaan doonayaa islaantan meesha qashinka ka guratay hilibka in aad siiso maalin kastaba inta ay u baahan tahay runtii islaantii way yaabtay oo waxay ku dhahday hooyo uma baahni waxa soo dhan ee waxaan u baahanahay isbuucii ama halkii toddobaad 1 kiilo oo hiliba waxa uu ku dhahay aniga ayaa bixinaya ee waxaad siisaa bil kastaba ama toddobaad kastaba 2 kiilo oo hiliba kadib islaantii aad ayay u faraxday oo waxay ku dhahday Allah ha ku barakeeyo oo aad ayaad u fiican tahay ilaahayna waxa khayr qaba ha ku siiyo runtii ninkii muddo sanad kadib ayaa waxa uu ku noqday wadankii caafimaadka laga sugeeyay in lagu qalo hase ahaatee ilmihiisa runtii aad ay uga xumaadeen oo waxay ku dhaheen aabo aad ayaan uga warwarsanay xanuunkaaga ee Allah ha ku caafiyo runtii wuu ku noqday dhakhtarkii oo uu baaray sanad kadib markii uu baaray ayaa waxay dhakhtarkii ku yiraahdeen nin yahoon maxaad samaysay oo dhakhtarkee ayaa tagtay oo ku soo baaray ama amaliyad ugu sameeyay runtii dhakhtarkii aad ayuu la yaabay ninkani waxa uu sameeyay ee uu ku caafimaaday wuu yaabay oo waxa uu ku yiri runtii aad ayaad u caafimaad qabtaa oo wax xanuuna oo ku haya ma jiro oo xanuunkii hore ilaahay ayaa ka caafiyay runtii ninkii waxa uu ogaaday ama islaantii miskiinta ahayd ee uu hilibka ka guursanaysay dhulka ina uu siiyay sadaqadii uu siiyay ina ay kaafisay iyo ilmihiisa oo aad u wanaagsanaa oo ku dhahay aabo ilaahay ha ku caafiyo runtii sadaqadu waxay ka mid tahay waxyaabaha xanuunada aan dawada loo hayn ilaahay ku suuriyo oo ummadda uu ilaahay si yaro tartiiba ama si yaro fudud uga dulqaado xanuun kasta oo dhakhtar kasta u taag waayo runtii ninkani waxa uu ku mutaystay maadaama islaan yar oo miskiina fadlan subscribe noo sii qaybta GYL TV ee YouTube aadayaan idin salaamayaa dhammaantiin meel kasta oo joogtiin muuqaalka markaan intaa kaga nimaadno dhammaan bulshada Soomaaliyeed ama bulshada caalamka meel kasta adduunka joogtaan waxaan kaga tagi doonaa wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته اسمع قال دمبه يسارك تدمبه وحيس بدن حدي مقال كانوا كعجب قليل أما عاد شيء فضل شر له ولو ذاك أصحاب هذا سي أيوة وجوانا قاتان ما يقول تصالح قاتان مركبة وحنا دلايا هاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.